halkan waa deegaanka tabeelaha Sheekh Ibraahin ee duleedka magaalada Muqdisho waxaa si toos ah uga socda banaanbaxa ziyaarada Allah u naxariistay Sheekh Barrow iyo awlaadiisa ziyaaradan oo ah mid ballaaran isla markaana sanad walba halkan lagu qabto ayaa waxa ay tahay ziyaaradii 89aad ee loo dhigo Sheekh Barrow Allah u naxariistay ziyaaradan Sheekh Barrow iyo awlaadiisa waxaa sanad walba ka soo qayb gala mashaayikh iyo xer kala duwan kuwaasi oo ka kala yimaada magaalada Muqdisho iyo sidoo kale deegaanada ku teedsan waxaa sidoo kale ziyaaradan qayb ka qaata duruq suufiya qaybaheeda kala duwan gaar ahaan Axmadiyo oo ay ka soo qayb gasho qaybteeda Raxmaaniya iyo sidoo kale dariiqada weyn ee Qaadiriya oo iyadana ay ka timaado qaybta loo yaqaano Uweysiya Jaradana Jarawadana Adina Adolatu Dala ila bifadl Juda bila magaela هدي الرول العفاق أولنا وهزلي وقولا وجورينا وزورينا أراكو لفلالنا من جيلا لأسال من فرعينا ونجلينا الله u naxariistay sheekha ziyaaradiisu ay ka socoto deegaankan tabeelaha Sheekh Ibraahin ee duleedka magaalada Muqdisho ee Sheekh Barrow ayaa waxa uu kamid ahaa khulafadii ka soo waxbaratay Sheekh Xaaji Wehliye oo kamid ahaa
culamaa udiinka la isku yidhaahdo khamsatu nujuuma. siyaaradan ayaana waxa ay noqonaysaa tii 8 ee shiikha loo dhigo, taasoo laga soo bilaabay tan iyo markii uu shiikhu geeriyooday. sannad walbana mashaa'ikhda iyo sidoo kale ahlubeytka shiikha ayaa siyaarada u istaaga oo mar walba waxay isku dayaan in siyaaradu aysan baaqan oo sannad walba shiikha loo dhigo, isla markaana loogu duceeyo in alleh uu markaasi ku manaysto naxariistii janno. culammadii iyo mashaaikhdii ka soo qayb gashay ayaana siyaarada ka hadashay, waxayna ku dheeraadeen ka sheekaynta fadaa'ishii iyo karaamaadkii uu lahaa allah u naxariistay sheekh barrow oo siyaaradiisa lagu dhigay deegaanka tabeelaha sheekh ibraahim oo ka tirsan degmada dayniile ee gobolka banaadir. xaaji wehliye khaliifkiisna ahay xaaji barrow ama sheekh barrow iyo igaarkiisa isna aan ka dhicin sheekh maxamuud ama macallin maxamuud. ziyaartoodu waaye labadaas sheekh, labadaas qamaraynka ah, labada dayax ziyaartoodu waaye. sheekh barrow wuxuu soo gaaray xaaji wehliye oo dariiqooyinka dhammaan soomaaliya xaq ku leh, maxaa yeelay xaaji wehliye ayaa sheekh u ah. xaaji wehliyena waa og tihiin yaxya bin cadow aa dhihi jiray magaciisii almulaqab bixaaji wehliye. marka sheekhaas oo xaaji wehliye ah oo tuftiisi ay ku dhasheen owliyada agtarkoodii oo ka mid yahay sayidii sheekh aweys dheere oo ka mid yahay iyo rag badan dariiqada axmediyada nashriyey oo meel kasta gaarsiiyey mashriq iyo maqrib. khaliifkiisii sheekh barrow ah maanta meeshaan lagu ziyaarinayaa muddo ka badan 98 sano ah sheekh la ziyaarinayaa. marka waa hal qarni waaye saasoo kale. marka waxaad mooddaa ziyaaradiisii maanta shalay inuu sheekha uu geeriyooday. ziyaaradan waxaa noo dhigaayo sheekhayni sheekh maxamed sheekh maxamuud sheekh barrow oo maanta xadaradiisa aan joogno oo majliskiisa aan joogno. ziyaarada sheekhaa dhigooyo iyo axbaabtiisa kale. marka baaraka allaahu fiikum, galabta ziyaartadan ka soo qayb galnay. sheekha karaamaadkiisii waxaaba ku filanbo alistiqaamatu khayru min alif karaam baa layidhi. istiqaamadan sheekha ilaahay uu siiyey maanta oo raggaan aa u jeediin oo wanaagsan wujuuhdan nuurta ka baxaayo ee sheekh u ducaynayaan oo ziyaarta isku yimideen oo axbaabtiisa ah ee jecel yihiin, iyo xafladdan qaaliga ah oo noo fidiyey sheekhayni sheekh maxamed sheekh maxamuud xaaji barrow oo noo fidiyey. asina khayr badan allah ka siiyo. sheekha owlaad baarre oo wanaagsan u dhalay insha allahu tacaalaa. maantana insha allah khayraadkii u abuuray iyo nafaxaadkii iyo sheekhiisa barakada oo ka hel xaaji wehliye ayaa maanta lagu daaqaa insha allaahu. alxamdulillaah, ilaaha mahad leh, ilaaha mahad iska leh oo maxalkaana soo xaadiriyey intaan muslimiin ee mu'miniin ah isku keenay. allahaasaa mahadsan. marka waxaa lu yimiday meeshaan ziyaaratul owliyaa'i wasaalixiina aa loo yimiday, gaar ahaan sayidii sheekh barrow ziyaartiisii waaye. bishaan la ziyaarto bisha muxarram qaarna u yaqaana zako 13 bannaanbax ay tahay, cawadii 14 dhafar ay tahay. sayidii sheekh barrow iyo carruurtiisa macallin maxamuud iyo macallin cumar halkaan waaye la ziyaaroya. ziyaartaas la dhigay sheekh barrow waxaas ka mid yahay khuluufdii oo sayidii sheekh xaaji wehliye khuluufdiisiyaas ka mid yahay. markii asdhimahay sayidii sheekh barrow asdhimahay aabbaheeya macallin maxamuud waxaas jiray 10 jiras ahay, 10 sanas jiray. aw sheekh barrow markiis dhimahay aabbaheey macallin maxamuud 10 jiras ahay, 10 sano as jiray. adeerkay sha'awukar 5 sanas jiray. adeerkay macallin cumarne calooshaas ku juri lama dhalin, usi oo caloosh ku juras dhintay. abkoobeya sheekh barrow oo maanta ziyaartiis aan joogno. marka 15 markii as gaaray aabbaheeya macallin maxamuudne waxaa khaliifay sayidii sheekh xaaji wehliye wiilashiis wiil ka mid ah oo dhammaan raalli isku yihiin oo la yidhaaho xaaji maxamed yarow. sayidii sheekh xaaji wehliye oo markaasa wadiifida dariiqida asi ashaayo
oo as joogo oolaadi kale ay joogaan ay kamid yahay xaaj maxamed cadde kulli waxaa raalli loo naqday in macallin maxamuud booskii aabbihiisa la joojiyo oo aw sheekh baro ahaayay tiin wa ilaahay wa aqbalay wixii ka dambeeyne oolaadiisiyaa hadda xaadirsan alxamdulilah ilaahay mahadis waa ilaaha ku mahadsan marka saas daraaddeed inaa ku dheeraada ma rabo garabkay waxaa jooga oolaadi sayidii sheekh calambaye oolaadiisa joogaan gaar ahaan sheekh yuusuf iyo walaalkiisa ay joogaan marka sheekh xasan inaan ku dheeraado ma rabo galab waaye iyakan inay baxaan ay rabaan intaana ku soo gaabsahaa muraadkan allah sahlo muraadulmuslimiin allah sahlo dembiyadii baalidkanya الله اسكو دافو انت انسو حاضرتي وحوري الله كديو مرحبا الحمد لله الحمد لله الحمد لله زيارة مقبولة لخياله كل كان وحوريه مع زيارة وين حاجي بشا معلم برو شيخ برو زيارتي شوية أخوة معلم محمود يقول شيخ برو معلم محمود الله أنا أقبل إن شاء الله تعالى وهقول من زيارتي أنا كغيب قلبه أخذ عينه maxamuud muuse sheekh warbaahinta suufi islaamic tv magaalada muqdisho.